ان مدن فرح كلي طبعا وقتiga ayaan ugu yar aan u gudubno arrimaha Soomaaliya dadaal hubka dhigis ayaa ka socda Soomaaliya dadka qaar waxay u maleynayaan qabaayil in loo jeedo aragtidaadu maxay tahay miya kula tahay inay maaragtay dib u keeni doonto dadaalka uu wado madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo horta ilaahi ayaa ana wada muslimaan ilaahi wuxuu maaga umbaa maagan wixii ilaahi u saamaxa umbaa saamaxa iyadoo sidaa tahay ayuu ilaahi wuxuu yidhi udcuunii astajib lakum ibarya waa idin ajiib baryadiina waa idin ajiibi gacmaha wax badan kor u taagnay ilaahay inuu dad fiican oo xalaal ah oo wadani ah Soomaaliya madax uga dhigo waxaan aaminsanahay maanta intii la hayo alxamdulillah shukrillah annaga Soomaaliya waxay ku maamahday jirkiis lahaya jiridka kama qoslo dhag intuu dhaha gooskiisa dambe ma arkaysa ninkii jirkiisa lahaya hilbihiisa ninka wahay anagu hal qoys hal qabiil baan nahay Soomaali la yiraahdo kala qaran baan nahay midka Soomaaliga meel alla meeshii uu joogo markuu dib ku haysto waanu danqanaynaa meel alla meelaan joogo marka indha xumada dhaga xumada maqalka xun oo maqleena indhaha wax xun oo ku arkeen badda dadka ku dhamaanay iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo intii la gowraca ka bacdi la dila lagala baxayo waxay bahalkii la kufsanayo la dilayo saxarada ku dhamaanayaan waxa kulli horta waxa weeyaan alsas been ugu beerta calooshaada oo calool xuma ee ugu beertay muddo dheer haatan waxaan isleenahay Soomaaliya horta wax ka khayraad badan malaha wax ka qanisan population ka ilayhiin qanimada ay haystaan adduunka wax qanimada haysta ma jiro ilaahina waan baryana wala dadaalina dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Ali Khayre way dadaaleen shaqo fiican bay qabteen hubka dhiga waa in garab loogu noqdo haday laba beel ay dib u dhaxeeyo oo isleeyahay hadii hubka la inaga dhigo kuna hubkooda haysta inagu soo duulayaan simultaneously isku waqti isku mar waa in laga dhigo markii beeshan laga dhigayo hubka meel alla meeshii ay qatar u aragto oo hubka marka hore u qaadatay waa in hubka laga dhigo waad garsama marka Soomaaliya dhan hubka laga dhigo way fiican tahay mar hadii hubka la dhigo dibku u yaraanaya garuun iyo maxay ahayd iyo toori wax yar wax harba lagu sameyn karaa marka in lagu dilo daan waa laga heshin way dhici jirtay waliga ka Soomaaliya waligeed way dhici jirtay masawara isku tuura laakiin hadda marka qori weyn oo boobo oo daqadii ay intaas oo boqol waxbad ay ka dhici aad shacab meel degan aad joogto laba boqol saddex boqol baa saacad ku dili kartaa waa lagu dhumay waa lagu leeday marka dhiiga Soomaaliya waa in la baajiyo saddex shay la afar shay oo qiimo gal ah oo sharafti soo celisay iyo horta sameeyay oo kamid ah maxaa kamid ah saddexda shay kow waxa kamid asagi oo madaxiisa kor u istaagay la qarankii buu mathala iyo prime minister kiisi oo markay meelaha kala tagaan Kenya noogu imaadaan wadamaha kale jiraanka tagaan Carabaha tagaan iyagoo oo maaragtay aanan dhulka isdhigeenin ee la xisaabtamaan ilaa qabki Soomaali baa adiga wada Soomaali meel joogto dhan qabkaasaytu inay dawladii meesha kali oo jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya lagaga matalo way jeceshahayako restore the dignity of the Somali nation and Somali state midda labaad shaqaalihii dawladda mushaarkooda qaataan oo hantidooda yareed oo la kala boobayay waa la sugay shilinka soo baxa dollar soo baxda waa la ilaalinayaa midda saddexaad ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo ciidan kasta ka fiican oo amisom ka wanaagsan oo kulli ka wanaagsan oo ka qiimo badan oo ka qiiro badan oo ka geesisan iyo dhisay hadana si dhisaya wadi famti Soomaaliya wadamihii deeq inay bixinayaan isku sheegaysi Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo ciidankaas oo cadawga anaga koowaad weligood ahaayeen mark my words marnaba inaan marnaba aan nida ka labalabay ahaayeen oo dhibaatooyinka anaga Soomaaliya ka dhaceysay oo dhanba mar kastaba aaba ka ah ayaga oo ka ku xisaabtamay hadii khayraadka shidaalka Soomaaliya gaaska Soomaaliya la soo saaro laabkiina Dahraan iyo Kuwait iyo maxay ahayd Iraq iyo lama soo geliyo
mashakilii oo shiicadii iyo sunnidii ay heshiis kaga ahayeen in Soomaaliya sida lagu hayo waa tan Soomaaliya ayagana wuxuu ku yiraahdaa raalli hada banaanku iska dhigay ma deeq baad isinaysaa shardi laan ha noqoto ma shardi baa ku xiran may hadalka aad wadataa deeqihii ay u ballan qaadeen markii ugu horeysay Sacuudiga uu tagay oo loo soo dhaweeyay sidii Donald Trump loo soo dhaweeyay oo kale ma gartalkii waa kan ayaanti inta aan ku oranay markaad wareysanaysay always keep your cards very close to your chest marka qaranka mathalayso macnaheedu waxa weeyaan marka lagu ixtiraamayo oo kor lagu hayo dambaa laga leeyahay waxba laga sasabanaya ma gartalkii waxaan u baahanahay diyaar waxaan u baahanahay waa diyaar waxaan u baahanahay $200 milyan bay ballan qaadeen $1 kama soo bixin gelin ma maqlay ha sheegi iyaga u baahnayeen hoosta uga sheegeen dekadihii bay ka sheegeen wax qaranka adiga nooansa ma yiri marka mudane Faarax kulli horta waqtiga aanu saamaxin laakiin si kooban dibka hadartan khaliijka ka taagan موقفك الصومالي أي قادة أما مدحين محمد عبد الله فرماجة وقاتل وحتى لي 60 مليون $. إني سعودي ما عرفتي وكديدي سامينتا أي صوماليا كوي لندن تو شبكة خليج $10 بليون هذا ديسيان نصب ويان صومالي نوع نصب you can't dictate my foreign policy قرن بان مثلا عندنا قرن بعته قال كان ما عرفتي مالها هي مالها ذي ما كان قيرت كذا قبتني إلى يوسي marka in lagu xisaabtamo in la laaluusho madaxweynaha Soomaali wareed si hadii loo eego anagu waxaan isku aragnaa wax naga sareeya adduunka dhuusan jirin ajiib waxaan ku soconayna waa midda waxaan ku nool lahayna waa midda waxa Ilaahay uu nagu maneystay oo ma aragtay anaga hadda aan inta wadankii burburay meel kasta aan ku burburnay haddana aan kor u soconno waa inta yare wadi fantay Soomaali way soo noqon sharaftii Soomaaliyeed way fahamsan 5 bilyan bay hada 10 bilyan ay dhahan inuu dhaha albaab ka baxa isku weeyaan you can't policy you cannot dictate my foreign policy hada ka hor baan u gooynay maxay ahayd Iran aan xiriir ku gooynay inkastoo Iraniinta dad isku haleen kara iyagana ay helo dantooda ay leeyihiin they have their own interest interest-ooda qaban laakiin markii xiriirka loo gooynay intii loo imaaday dawladda Soomaaliya markaa kida ayaa bas alaha ma xuseynaa loo gooy dawladda ahayd تنقوريس اوكي قالوا جاي مراتك اوكي حيجي اسم هي دولة حمر بقويس مركز وكانوا حيد ماي هذا النعم هذا أنا قام مركي وقت جيجي بان وجون كره وقت جيجي بان الحساب تمي وقت جيجي بان ودن كيجي السجا أن قولي الله ترى لي أنت سا وقبته إسكجر ريحية ما حد يصير بدن إيو شيعي إيو بقول شيء بيجي هاتي وطن وكون خليجك وصل يجي خليجك وطن صل لمد بينك هلا وطن مركي كل اللي إسكيل عليه هو يكون بوطن لكن ما أنا وحرب أنا وهو ودن كيجي